dowladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku howlaneed diyaarinta isku dubaridka iyo sidoo kale u dhameystirista ciidamada qalabka sida agabyada u baahan yihiin sida gaadiidka diyaaradaha dagaalka iyo wax walba oo markaa laga maarmaan u ah in ciidamada qaranku ay helaan haatan diyaaradaha ciidamada xoogga dalka ayaa ka howlgalaya deegaanada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta saldhig cusub ka sameystay magaalada Raaskambooni dowlad goboleedka Jubbaland fadhigan cusub ayaa leh kaydka adeegyada aasaasiga ah sida shidaalka diyaaradaha dayactirka hoyga duuliyaasha iyo farsamo yaqaanada ujeedada ayaa ah in ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku helaan adeegyada diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Soomaaliya magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose maalmihii ugu dambeeyay waxa ka soconaya howlgallo gaar ah oo ay sameynayeen ciidamada xoogga dalka haatanna waxa ku soo biiray diyaaradaha ciidamada cirka kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgallada ka dhanka ah kooxaha qawaariijta ee shabaab ee la doonayo in looga saaro deegaano iyo degmooyin dhaca gobolkan Jubbada Hoose taliyaha guutada 18aad ee kumaandooska Gorgor Xasan Ciraaqi iyo saraakiisha kale ciidamada qaranka ayaa garoonka diyaaradaha ee Raaskambooni ku soo dhaweeyay diyaaradaha ciidamada cirka oo dhawaan fuli doono howlgallo toos ah oo ka dhan kooxda qawaariijta ee shabaab taliyaha ayaa tilmaamay in ku biirista diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ay wax weyn ka tali doonaan qorshaha dagaal ee ka dhanka qawaariijta ugu horeyn waxaan leeyahay xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeedba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan maanta joognaa garoonkii Raaskambooni ee degmada Badhaadhe runtii waxa weeye garoonkaasi waa garoon caalamiya waa garoon ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan u furan ciidamada qaybaheeda kala duwan ee Soomaaliya ayaa ku sugan ilaahay maadi maanta waxaan ugu soo biiray ciidanka cirka ee dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed runtii gaadiidka muxuu hadii la yiraahdo ciidanka cirka ee Soomaaliya waad aragtaan waxa weeye ayadoo ma garanaysa hadii la yiraahdo waajibaadka qaranka gudanaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka cirka maanta halkan wuxuu noogu keenay isagoo muxuu nagu soo biiray oo waajibaadka qaran gudanaya saanad military iyo hadii la yiraahdo agab ciidamadu u baahan yihiin runtii waxaan isleenahay waajibaad qaran bay gudanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada waxa weeye cirka laba shalay waxaa noo yimid oo dowladda Soomaaliya soo dirtay ciidanka waxa weeye badda ee Soomaaliya ciidankaas oo waxa weeye la wareegay guud ahaan mas'uuliyadii badda oo runtii aan isleenahay ilaa waqtigan iyo waqtigii ay yimaadeen hawl fara badan bay ku guda jiraan taasoo waxa weeyaan ay ciidamadu mar walba diyaar u yihiin qayb waliba inay muxuu aqoonta iyo waxa weeyaan qaybta ay qaabilsan tahay inay la wareegto ciidankii afantariga jooga ciidankii badda jooga ciidankii cirka jooga ciidankii kale hadii la yiraahdo nabad sugidda iyo hadii la yiraahdo ciidankii booliska qaranka Soomaaliya waxaan leeyahay hadii la yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan garoonka Raaskambooni waxa weeyaan shaqada aan ka wadno waa mid muxaadila waajibaadka qaranka aan ku gudanayno mid waxa weeyaan aan dib uga laabanayna ma aha waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed guul iyo gobonnimo u rajaynaya aad baad u mahadsantahay